in ka badan 700 oo askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa dawladda Kenya waxay mar kale doonaysaa inay dib ugu soo celiso gudaha magaalada tani caasimadda Muqdisho. Dawladda Kenya ayaa waxay sheegtay in dib loogu soo celin doono ciidankii dhawaan isku dhiibay wadankaasi Kenya isla markaana horey uga cararay gudaha magaalada Ras Kamboni. Ciidankani oo ka tirsan kuwii dhawaan la geeyay Ras Kamboni isla markaana dagaalkii xoogana la galay ciidamada maamulka Jubbaland oo hogaamiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Sida wargeyska Daily Nation ee ka soo baxay gudaha dalka Kenya aan ka soo xiganay waxa wararku ugu dambeeyay ay sheegayaan in 700 oo askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dib loogu soo celin doono magaalada tani caasimadda Muqdisho. Dhawaan ayay ahayd markii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay dagaal toos ah la galeen ciidanka maamulka Jubbaland. Wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan in sidoo kale magaalada Kismaayo ee ka duushay diyaarad ay leeyihiin maamulka Jubbaland kuwa oo la sheegay in ciidamo ay ka soo qaadi doonaan Ras Kamboni. Ciidamadaas oo kamid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Wargeyska Daily Nation sida uu qoray waxa sidoo kale la sheegay in ciidamadaasi laga qaadayo magaalada Ras Kamboni iyadoo la geyn doono Kenya kadibna la keeni doono gudaha magaalada tani caasimadda Muqdisho. Ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa la sheegay in dagaalkii ay kula galeen Ras Kamboni ciidanka maamulka Jubbaland in dhibaato fara badan ay soo gaartay iyadoona halkaas laga qabsaday ciidamo fara badan sida ay sheegteen maamulka Jubbaland. maamulka Jubbaland ayaa maalmihii ugu dambeeyay guulo fara badan sheeganayay sida mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulkaasi hore ay shaac ay kaga qaadeen. hase ahaatee wargeyska Daily Nation sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada guud ahaan lagu soo celin doono gudaha magaalada caasimadda Muqdisho. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wali waxa uu wadaa qorshe ka dhana hogaamiyaha Jubbaland isla markaana dagaal mar kale laga cabsi qabaa inuu Jubbaland ka dhaco. Axmed Madoobe ayaa kamid ah shakhsiyaadka saameynta badan siyaasadda Soomaaliya ku dhaxlay inkastoo dhibaato baan uu ku hayo shacabka ku nool qaybo kamid ah deegaanada maamulka Jubbaland.